شرفت بدن آدي عن إدين سلامايا أنا جمانتا فرح وين أي تحي إن عاو عن سيحنايو روم صومالي قاس أهان بونتلان إن عاو أنكو هو ينايو مر بدن ninkii Trump la dhahayo madaxweyne ka ahaan jiray Mareykanka iyo dadkiisii marar badan ay waxay dhaheen ilaahay meesha ka imaatay ku laabo marka caawa iskeenay reer Puntland idinkana hadee waxaad muujiseen Puntland in ay tahay dhul boqortooyo oo la yaqaan si sharaf dad in loo soo dhaweeyo maanta waxaad tusiseen walaaltinimo jacayl dadnimo aad iyo aad aan idinku mahad celinayaa sida sharafta leh aad ii soo dhaweyseen aniga alxamdulillah waxaan ahay gabar Soomaaliyeed waxaan ahay gabar Afrikaan ah waxaan fursado u helay 4 sano hadda alxamdulillah oo aan congress kursiga ku fadhiyay in ilaa iyo 30 wadamood oo Afrikaan aan tago badana waxaan israacnaa dadka aan iskuula jirno committee-ga oo foreign affairs ka ah wadan kasta oo Afrikaan aan tagno madaxweynaha ama madaxweyne ku xigeenka ama prime minister-ka wuxuu dhahaa gabadheeni baa keenteen maanta marka taasna waa mid lagu faano laakiin way ka duwan tahay hadda markii aad imaatid dhul runtii aad u tahay gabar caaw sharaf weyn ay ii tahay in aniga aan ay hor fadhiyaan dad walaalahay ah dad waalid aan u ahay dad aniga waalid ii ah ama adeer ha ii ahaadaan ama eedooyin ha ii ahaadaan ama ayooyinkay ha ahaadaan ama awooyinkay ha ahaadaan waa sharaf weyn markaad imaatid dhulkaagii oo aadan u baahnayn dad inaad u abtirsatid oo u sheegatid waxa tahay oo ku yaqaano sida uu ogtihiin aniga aabahay waa reer Puntland uu ku dhashay Ilaahay u naxariisto waa reer Bayla aniga waxaan ka tagay wadankii markii burburka uu dhacay aniga oo 8 jir 9 jir ah waan ka wada hadli jirnay aabi aniga markasta uu Puntland soo aadayo aabo goorma ay kaxayne marka alxamdulillah 20 sano ka bacdi markii aan ka qaxnay wadankeeni wuxuu yiri ilhaan waan baxaynaa 2011 kii ahayd waxbarashadaydan dhameystiranayay waxaan go'aan ku gaaray in aan suubiyo project oo examen garaynayso meelaha aan dareensanay dadka in ay yihiin dad sharci fahmi karo aqoon leh lagu soo kordhiyay institution iyo in ay fahmaan oo aan rajaynayna hadda in democratization ay ka dhici karto in aan baaris ku suubiyo marka wuxuu yiri bal Puntland soo fiiri adiga soo bax Puntland baan tagaynaa Puntland baa ka dhici doonta maalin in insha Allah la helo one man one vote marka waa soo raacnay alxamdulillah wadankii markaan imaanay waxaan ka soo bilownay Boosaaso wuxuu ii ballamiyay qof kasta oo hadee ama gaarsoor ha ahaado ama ha ahaadaan dumarkii wadankan usoo halgamay Puntland usoo halgamay inay dhismato ama ha ahaadaan wasiirooyinkii joogay waagaas madaxweynihii Puntland waagaas joogay civil society oo dhan dhalinyarada jaamacadaha joogay adi qof kasta uu heli karo fursad in aan la fadhiisto oo 1 saac 2 saac aan wareysto uu ii ballamiyay marka dad baa jiray oo muhiim ahay wareysigaas aan isla galnay aniga hadee nin waxa isoo koriyay wadanka jeclaa Soomaali jeclaa Puntland aad u jeclaa marka taariikhda Soomaaliya
markaan yaraa uu iga sheekayn jiray wuxuu dhihi jiray Soomaaliya waa wadankii ugu horeeyay oo qaaradda Afrika democracy ay ka dhacday waa wadankii ugu horeeyay dadka ay fursad u heleen in ay codeeyaan markay ay xoroobeen waa wadankii ugu horeeyay ilaa haddana waa loo xusaa Soomaaliya inuu yahay wadankii ugu horeeyay oo peaceful transition of power uu ka dhaco madaxweyne laga raayay uu yiri waa la iga raayay madaxweyne adan ku aqoonsanahay marka taas waa mid lagu faano oo la xuso hadde waa wuxuu ahaay hadda waa nin Puntland jecel wuxuu iga sheekayn jiray halgankii loo soo galay Puntland inay dhismato wuxuu iga sheekayn jiray inay yihiin reer Puntland markii Soomaaliya ay burburtay dad isku yimid oo yiri annagu hadda dad way qaxeen dad baa wadankii ku haray waxaan rabnaa inaan dhisno meel wax looga talin karo wax lagu qaareyn karo dadkuna ay ku badbaadi karaan marka dadka qaarkood oo halgankaas soo galay uu iga warami jiray dadkaas waxaa ku jiray walaashay Caasho Geele oo joogto caawa inta markaan Puntland imaanay waxay ahayd ministerka oo dumarka u fadhiyo wuxuu ahaa meetingkii ugu horeeyay oo uu ii qabtay markii aan Garowe imaanay dadka markaan la kulmo saddex su'aal aan weydiin jiray saddexda su'aal aan weydiin jiray waxay tahay 98 ilaa hadda 2011 kan aan joogno dastuur baa la dhisay waxaa lagu tala jiray sidii madaxweyne Deni ugu yiri oo kaleete in wadankan state kan uu noqdo meel qof kasto uu ka codeyn karo oo xur u yahay codkiisa meel cadaalad ay ka yaasho maxaa loo gaari waayay intaas taas su'aashu waa ahayd maxay tahay saameynta ay ku leeyihiin shacbiga ku nool Puntland sababta guushaas loo gaari laayahay iyo maxaan qaban karnaa annaga maanta si guushaas loo gaaro saddexdaas su'aal aan qof kasta weydiin jiray marka laba qof ay jiray oo jawaabta ay siiyeen isku hal ay ahayd labadaas qofna waxay ahaayeen Caasho iyo adeer Cabdullaahi Yuusuf oo madaxweyne ka soo noqday Puntland oo asigana aan fursad u heli doono markii aan raadiyay wuxuu yiri Dubai jooga waan ku kaxeynaya Dubai aan ku geenaya waa la fadhiisanaysaa waan is wareysanaya asigana marka Caasho waxay ugu tiri Ilhaan annaga waxaan nahay dad wiligood aaminsanaa in la isla fadhiisto oo wax meel la isla mariyo kaas waa democracy haddaad meel fadhiisan kartid aad wada hadli kartiin go'aan aad isla wada gaari kartiin qof kasta codkiisa la maqli karo democracy waaye taas haddii aad aaminsan tahay annaga saan u aaminsannahay reer Puntland in qofka kalsooni uu isku qabi karo uu meel soo istaagi karo wixii uu rabo uu sheegan karo dadkan uu sheegi karo wuxuu u tari karo taas waa democracy laakiin waxay tiri sababta aan wili u gaari la'nahay oo intaasoo sano looga soo shaqeynayo qof kasta madaxweyne kasto hamiyu ku lahaa in uu tixgeliyo qof kasto in fursad uu helo in codkiisa loo xisaabiyo qof asiga matali karo uu doorto in asiga aan looga turjubin qofkii matali lahaa waxay tiri waxa hor istaagsan intaas waxa waaye dadkii way daalaan way isku dayaan way ku rajay ku leeyihiin laakiin democracy waa messy waqti badan ay qaadataa qofku isku dayo ilaa uu dhamaystir gaarsiiyo priority ka dhisto ilaa ay hadda muusan imaan adeerna markaan u tagay jawaabtaasuu isiiyey marka waxaan dareemay in annaga aanan ahayn dad nacayb u qabo doorasho dad iska rabo in qof kaleete ama qof qabiilkooda matalaayo ama qof familkooda matalaayo in
asiga u sheego qofkii matali lahaa waxaan nahay dad aanan fursad isiinin in aan ku mintadno sidii aan ku soo dhicin lahayn true democracy in ay ka dhalato Puntland waxay leedahay faa'iido badan hadda aniga idinkaga sheekeyn karo anigu aad baan uga soo faa'iiday democracy-gaas oo ogolaanayso in qof kasta uu fursad u helo in codkiisa loo xisaabiyo markii koow aan tartamay 2016kii aan rabay baarlamaanka Minnesota inaan galo odayaashii adeeraday ahaa kulligood way fadhiisteen wiil in adeerkay ay la taltamayo asigana reer Puntland waxay dhaheen Ilhaan in adeerka u dhaaf Ilhaan in adeerka kursiga ugu dhagan odayaal buu ku biilanayaa marka waxaan dhahay in adeerkay hadde amaan aniga oga haboonahay kursiga aniga ii daaya bal aan isku dayno in aniga hadii ii dhaafo in adeerkay ka fiicnaana laga yaabaaye bal hala baroobeeyo Minnesota taariikhdeeda laba mar ay ka dhacday in wiil iyo gabar oo Soomaali ah kursi ay isku qabsadaan labadii marbo gabadhii araysay taas waxay ku tusinaysaa haddii aan u dhaafi lahayn adeeradeen in ay go'aankaas gaaraan maanta aniga iyo Hodan Xasan kursi kuma fadhin lahayn anigu maanta taariikh maana suubin lahayn marka waa inaan fikirnaa haddaan anaga Soomaali nahay haddaan reer Puntland nahay waa inaan fikirnaa meesha aan rabno inaan gaarno maxaa naga hor istaagsan waxa naga hor istaagsan waxa waaye fikrad xun waxa naga hor istaagsan waxa waaye cabsi waxa naga hor istaagsan waxa waaye in anaga aan isjeclaysiinayno xooga aan dadka aan ku maxaa la dhahaa isha hogaaminayno laakiin haddii aan cabsidaas iska baabi'ino oo aan dhahno bal aniga maanta haddaan kartidayda iyo aqoontayda iyo programka aan wato agendada aan wato dad maanta aan ula soo hor istaago gabar iyo wiilba ha ahaatee waxaan aniga kalsooni ku qabaa in aniga la ii dooranayo aniga aan meeshaan ka soo bixi karo taasna waxay ku imaanaysaa in aan bildgarayno progresska oo ay suubisay Puntland markii aniga hadda 11 sano ka hor aan Puntland joogay oo aan dadka badan wareysanayay waxaan qoray aan u maleynaa adiga 46 page report aan ka qoray programkaas ayaan taas isma aanan dhehaynin 11 sano ka bacdi waxaad arkaysaa 3 magaalood Puntland ay ka dhacaysaa dadkii iyagoo codeynaya waxaan dareensanaa jawaabihii dadka ay siinayeen in ay qaadan doonto 30 sano 40 sano marka waa wax lagu faano in madaxweyne inay uu go'aan ku gaaray wax kasta ha igu qaadatee waan ku dadaalayaa in aan tan fuliyo markii aad go'aan gaartid aniga saasay ahayd qof 44 sano kursi ku fadhiyo aan go'aan ku gaaray in kursigaas aan ugula tartamo wiil kala meesha soo galay oo Soomaali ah wili waan ku adkaystay go'aankaas oo waxaan aaminsanahay in aniga aan ka soo bixi karo shaqada oo aan rayn karo kursigaas marka haddii anaga aan aamino qof shakhsi ahaan in wixii aan damacsanahay aan ku inda adeegno oo ku bareerno ilaa intii uu ka dhamaanayo aan ku guuleysanayno inaan ka daba harin guul weyn aan gaarayna haddii Ilaahay yiraahdo haddii aan iska dhaafnana shakiga iyo xumaanta iyo xumaan raadista
taasna hadda ilaaha og meel Soomaali ay gaarayso qof walaalka haduu dhaho programkan aan wada wax fiican aan noogu jiro haddaan kulligeen garab istaagno meel kasta guul aan ku gaareenay ila tahay waa u saxbin kartiin taas because waa guul weyn maanta inta ay doorasho ka dhaceen oo aan u maleynayo hadda sanadkan soo socdo meel kasta oo Puntland laga codeyn doono waa guul weyn 12 sano ka hor meeshaan aan imaaday dadkii fikradii ay qabeen iyo fikradda maanta ay qabaan in ay kala duwan tahay waa guul weyn in aniga 12 sano ka bacdi aan soo laabto in anigoo Congresswoman Ilhan Umar waa guul weyn maanta 6 sano ka hor markii la ii doortay sharci dejiyaha ugu horeeyay oo Soomaali Mareykanka in maanta 14 sharci dejiye aan haysano marka haddaan is aamino haddaan isku tashano haddaan istaakulayno haddaan wanaageena raadino oo xumaanteena aan ilowno Soomaali waxay noqonayaan dad meel kasto laga xuso anagu waxaan aaminsanahay inaan dadka ka duwanahay waxaan aaminsanahay in aad iyo aad aan dadka uga duwanahay waxaan dadka uga duwanahay waxaan nahay anaga dad aad iyo aad u aaminsan in wax kasto ay qaban karaan wax kasto qof uu qaban karo waxay nala tahay inaan qabsan karno laakiin waxa kaliya aan guusha aan gaari lahayn aanan ku gaarin waa anagii isku dhigno marka waa muhiim inaan jidka iskaga dhaqaaqno aan fiirino bal ilaa cirka meesha aan gaari lahayn أنساس أنا أمين هاي ما أنت وحان قلني rigorous debate هذا عيسى يدعاشو ولا شيء مدحونا دني وحان debate قرينيني دمر empowerment مركا دك ناش فديي وحي دهان وحي دمركا وما بعنا ويدرسيهن دمركا صومالي ده إن wax kasta ay qabsan karaan iyaga lagu tashtaa iyaga guri maamulo iyaga maaliyiin leh iyaga adduunyadan badbaadiyay dagaalkii markuu dhacay gabar haday ku maqan tahay qurbada ay ku jirto habeen gaajo kuma seexanaysid wadanka hadaa ku nooshahay gabar Soomaali ma sha Allah alxamdulillah laakiin inta kaliya aynan gabdhaheena uga muuqanin meelihii la rabay inay ka muuqdaan وأناجي أنا جد كأوجد أقاقين وأنا فيرين بالماشي جاري كرت هدي قبل فرصة للسيو وح أوباهن تهاي أو إن الإمباور جراي يبرنامج لوسو بي وح لوسو بي أيو بدنا أوباهن تمجرتو بس حقه أنا ماشي جارتو مركواتاس فكر كأني إنه ساس نقضه معها إن أنا عن سكو مشغولنا أو عن أنا إسفير سنة أو أنا عن نقناة دتكي سورستاجي لها أو حمانة ودرادين لها أو ملكستو كمجلسيو وأنا إن أنا نقناة دتكي جد كيس كجد دقائق لها وديه لها بالفيري مدحوين الدني وحي أسوبي جدك بنتلان كبس بالفيري مالها لقى علينا بالفيري مدحتويري بنتلان سيو أكتاي قروحي كموقته بالفيري شرفت ضدك يكون نوليهين بالفيري نبدأ كجرته بالفيري أنت عسينا كشقينا واحد مركا قفك إلا وانقلد حد قد بس شقدي لو أد أديبتهي هدوسن كو حد قد بين أذيك وحد وباهن تهي إن أد جدك أوقات أخاخدت أد في رسيت إلا إيماش أجاري كرو ولكن بزنس دولية هاي الحمد لله برهوري أسقو لعكتي سي وحي سي ماشو جيس أديك شغل هذا معها هوريها آدو فوربس 400 إنه ونخضع لجيابا سي دي قبل هذا جامعة كود لقطو أو أي سعته وقت جاي تجيسي وقت جاي سعته إيو إسكداف وحلا جيابا بريء إنه نخطو راكد ساينتست أو أي بستو دكي إن آدي لهاي مونكا inaan fikradeenni aan bedelno oo aan noqono dad aaminsan sidaan u ognahay dad kartile inaan nahay
dad maxaa la dhahaa ii sheeg aaminsan soomaalinimadoodii iyo dhaqankoodii iyo diintoodii iyo dad inaan nahay anaga kalsooni weyn isku qabo waa taas inaan ogaanaa laakiin qof kasta hadda taas aan ku abuurnaa oo aan dhahnaa bal aniga kalsoonidaan isku qabo aan ku qabaa walaalkay waxaan hadduu go-aan ku gaaray bal waan ku taageerayaa iyo ku soconayaa waxaan kusoo gabagabeynayaa in ay maxaa la dhahaa ii sheeg booqashadan sidaan haddaati idinkugu sheegay oo kaleete ay ii tahay booqashad aad iigu muhiimsan 6 sano aan hadda waddanka ka maqnaa waxyaalo badan iska bedelay quwadda aan leeyahay iyo wixii waddankii aan u qaban karo waxaan ku go'aansaday in hadda kow aan tusiyo dadkii idhahay meeshaa kasoo laabatay ku laabo in dadkayga aynan ahayn dad xux ah ay yihiin dad qayraysan oo si sharaf ay ii soo dhawaynayo midda labaadna hadda waddankii aan aniga indhahayga ku arka meeshuu maraayay iyo sidii xaaladii ay tahay waxyaalo badan aan ka shaqaynay saad u ogtihiin ama ha ahaato Soomaaliya deenteedii in loo cafiyo oo dad relief loo suubiyo ama ha ahaato ilaa iyo 1.2 billion dollars in aan usoo dhicino si resiliency loo suubiyo ama maxaa la dhahaa ii sheeg abaarta iyo baahida waddanka ka jirto looga dadaalo ama ha ahaato jidkan ilaa iyo qarda ilaa iyo beelo gaarayo oo aan ayaamahan ku shaqo jirnay sidii loo taakulayn lahaa waxaan go-aan ku gaaray in waddankii aan kusoo laabtay indhahayga aniga aan ku arko meeshii wax idiin maraayaan meeshii baahida jirto iyo sidii aan ku wada shaqayn lahayn haddee aniga Maraykan aan ahay baarlamaanka Maraykanka aan ku jiraa laakiin gabar af Soomaali ku hadashaan ahay gabar jinsi Soomaali lahaan ahay saan u fahmaayo u dareemayo baahidiina way ka duwan tahay dadka kaleete waxaan kaleeto aaminsanahay haddee Soomaaliya dadka marka ay fiiriyaan ama qaaradda Afrika oo dhan dadka markay fiiriyaan fikradda ay ka qabaan inay tahay waxa xun oo TV-ga ay ka arkaan ama baahida iyo gaajada la sheegayo oo aynan arkin fursad aynan u helin opportunity-ga iyo quruxda iyo maxaa la dhahaa ii sheeg dadka inay yihiin dad aad resilient u ah oo haddii fursad la siiyo waxyaalo badan soo dhacsan karo marka waxaan rabaa inaan laabto hadduu ilaahay yiraahdo week ka bacdi Maraykanka mar saddexaad Congress termkayga aan bilaabo oo la ii dhaariyo aan u shaqo galo intii ka dhiman aan qaban lahay waddanka Soomaaliya qaaradda Afrika aan u suubin lahaa waa mahadsantihiin ilaahay idin shafro saa ii sharaftaan